xaaladda dalka hadda uu ku sugan yahay insha Allah way sahlanaanaysaa wax kastoo adagna fudayda ku dhamaadaan soo maaha insha Allah niyadiina khayr u sheega waa fududaanayaan horaa loo soconayaa cid u istaagaysa ma lahan waxaan kaloo rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka walaalaha hortayda fadhiya inuu cadeeyo kursiga mas'uuliyadda idinka loo dhiibto shacabka loo dhiibto shacabka u qadnaynaa shacabka cid ka sarreysa ma lahan cid kursiga ku dhalatay oo ku dhimanayso ma jirto idinka idin shaqeynaa qof kastoo siyaasi ah oo mustaqbalka leh dalkan waxaan u sheegayaa inuu u hoggaansamo baahida shacabka ma malaysan kartid qof idinka mid ahna ma garan karo xaaladda aan u soo maray xanuunka walaalahay Somaliland ee doorashooyinkooda dhowr habeen waa u soo jeeday anigoo ka fikirayo halkee ka bixisaa yaad kala tashataa yaa kula furdaamin kara xanuun badan soo jeed badan alxamdulillah maanta waxaan ku faraxsanahay labada hogaamiye gudoomiye Cabdi Xaashi iyo walaalkay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi iyagoo maanta gacmaha haysto inay halkan igu casuumaan ina tusaan inay diyaar u yihiin inay u qabtaan Somaliland doorasho hal dardaaran rabaa intaan hilmaamay inaan ku darsado walaalayaasha Somaliland insha Allah haddii dawladda soo socotay dhalato fadlan ku dadaala inaad habraac samaysataan oo hadda kadib la idin soo faragelin maahan in qolo kastoo cusub markay timaado ama dawlad kastoo cusub lagu wareero oo la yiraahdo maxaynu sameynaa ma geeskaan ula baxnaa ma dhinacaana la aadiyaa tashta bisha ugu horeysa labada bilood ugu horeysa saddexda bilood ugu horeysa nidaamkaas la imaada kaasna ku dhaqma markay timaado 4 sano kadib haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idmo sida hore u ballan qaaday haddana hortiina ka ballan qaadayaa Somaliland masiirkeeda doorashada iyada xor u ah waxaan uga dambaynayaa labada gudoomiye iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka inay tashtaan sida ay rabaan ila yimaadaan anigana diyaar ayaan u ahay inaan gacan ku siiyo garabna ku siiyo inay soo diyaarsadaan odayaashooda oo ila yimaadaan inay soo diyaarsadaan goobta lagu qabanayo inay ila yimaadaan siday rabaan amnigooda hadda waxaa ila socdo taliyaha booliiska oo aniga aan soo watay rabana hortiin inaan ka caddeeyo cid kastoo aad rabtiin oo aad ku kalsoon tihiin oo booliiska ka tirsan iyo Amazon iyo cidda rabtiinba diyaar ayay idin tahay waxaan diyaar u ahay in halaqa riwaayada iyo dawacooyinka geesaha taagtaagan aad ka celiyo habraaciina raaca nidaamkiina raaca cid idin soo faragelin karto insha Allah ma jirto waxaan rabaa inaad isku tashataan oo isku yeerataan oo tala midaysan aad yeelataan kadibna anigana diyaar ayaan idin laahay inaan idin garab istaago har iyo habeenna diyaar ayaan u ahay inaan hawshiina sida ugu dhaqsiyaha badan u dhameeyo soo diyaar garooba gudoomiye Cabdi Xaashi waa ku mahadsan tahay aan sacfina malka meeshaan waxa ku qoran kulan sacfisa adeerkay gudoomiyeega aqalka sare raadar raadin loo maraaco afis ayaan ku weydiistay xildhibaanada labada aqal iyagana afis ayaan weydiistay insha Allah waxba nagama ba'ayaan ayaan diyaar garoobno horena aan u soconno hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idmo waa in idin garab taaganahay xaaladda dalka hadda uu ku sugan yahay insha Allah way sahlanaanaysaa wax kastoo adagna fudayda ku dhamaadaan soo maaha insha Allah niyadiina khayr u sheega waa fududaanayaan horaa loo soconayaa cid u istaagaysa ma lahan waxaan kaloo rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka walaalaha hortayda fadhiya inuu cadeeyo kursiga mas'uuliyadda
idinkaa loo dhiibtay shacabkaa loo dhiibtay shacabkaan u khidmaynaa shacabka cid ka sarraysa ma lahan cid kursiga ku dhalatay oo ku dhimanayso ma jirto idinkaa idin shaqaynaa qof kastoo siyaasi ah oo mustaqbal kale dalkaana waxaan u sheegayaa inuu u hoggaansamo baahida shacabka ayaan u shaqaynaa cid shacabka awooddeeda si qaldan ugu tagrifari kartana ma jirto horaa loo soconayaa shacabkana way tashteen wayna tashan doonaan shacabkana waa xor intaas inaad la socotaana rabaa insha allah wixii soo taagnaa way dhammaanayaan horaa loo soconayaa hadda hawsha iigu horreyso aan qabanayo oo aan u diyaar garoobayo waa arrinta doorashada somalilan oo igu horreyso aqalka sare soo diyaar garooba hadday daahdo idinkaa daahiyey hadday soo dhaqsato idinkaa soo dedejiyey